حتى فيديو كان معناته إنه هو رواية أربعة واي موضوع كان دون حتى depression محلو يقانا محاسوة سيدك depression كحياة بدنا نسويه كران قفكا in environment يكون نولي هاي سيدا ندك ولا شقة حاجة كريت مادو نلاش كريت مادو وحياة بدنا بدنا نكون ما كرتا لكن أنا كحمان ترمنا depression كإيمانا يا جورك وسافش جورك so وحاول قيبنا لبا قيب وحواي جورك كهر depression قف كدعو يو مكو جورس نفتركيسي حتى أنا depression كدعاه labadaas ayaan ka hadli doonaa maanta depressionada marka waxaan u kala qaadi doonaa laba qayb saacidin kala sheegay depression qof intuu soo guursan iyo markuu guursado lafteeda intuu guursan maxaa depression ku dhici karo waxay tahay hal su'aal intana ka dhinaca kale markay timaadana waxay tahay waa hal su'aal inta badan laba su'aal unbaa foodada inta badan dadka aad u dhibsadaan oo keenta su'aasha ugu horeysa guurka hor waxay tahay qofka in la weydiiyo markastaba ama saaxiibadiisii waalidiintii all the environment oo ku nool yahay oo dhan in la weydiiyo niyow ma guursatid in laga dhigo ilaa heer la gaarsiiyo qofka inuu asiga diidan yahay inuu guursado inuu asiga diidan yahay oo aragtid dad qaar ka markii la weydiiyo ma guursatid si naftiisa daaniyo maxaa ka qaldan aday maxaa u laasan tahay hebel uu guursaday heblaay way guursatay maxaa dadka kii ka weynaa uu guursaday kii ka yaraa uu guursaday adiga maxaa ku dhacay soo su'aalahaas badan qofku is weydiiyo waxa meesha ka dhalan doona waxa loo yaqaan depression ka inta badan doo sii socdo waxa laga wax la dhaho suicide inuu isku bedelo qofku isdilo inuu gaaro ama waxa laga yaabaa qofkii inuusan isdilin oo isdilka caadiga ah inuu dhaco isdilka naftigiisa waxa qofkii caadi tago oo hangareeyo ama sunoo cabo ama u dhinto ama qofkii naftigiisa inuu cuntadii ka tago wixii sidaas markaas slowly inuu dhinto jirkiisa kadibna aakhiriyan u dhinto malnutrition ama waxa kale marka su'aashaas waa su'aal aad u halis ah marka bulshada waxaan rabnaa inaan ka wacyi gelino su'aashaas waxa la jirto waqti qofka la weydiin karo iyo waqti aan la weydiin karin waqti aan la weydiin karo waa taa bulshada anaga oo badanahay oo qof walba saaxiibkeen aan guursan aan la weydiinin ma guursatid goorma guursanaysaa ma saan ma fahantay waxa waaye waxaan saan waaye marka Soomaalida iyaga dhahan guurka waa calaf oo waqti hadda maanta qof xadadan karo dhigi karo aan waqti hebel iyo qof hebel aan guursanayna dhigi karo ma jirto laakiin waxa laga yaabaa qofku tamani kara oo dhigay waqti hebel aan guursan rabaa qofna caasna aan guursan rabaa ma fahantay laakiin inay dhicin waa macquul inay dhacdan waa macquul marka dadka waxaan rabnaa markii qofka saaxiibkiisa ama gabadha ay soo bandhigto dadka ay tiraahdo aniga bil hebel soo socoto sanadka soo socdo waxaas ayaan rabaa inaan guurkii sameeyo in waqti la weydiiyo diraahaye balantaada way soo dhowdahay gabarnahay guurkii goormeen waaye goormo dhici rabaa qaabku u dhici rabaa qof markaas wuxuu arkaa qaab caadi ah laakiin marka asagoo aan plan ama as qorsheysana hadii la weydiiyo problema ka dhalan kara okay taa waxa waaye guurkii ka hor iyadoo faahfaahsan insha Allah video soo socdo ayaan ka sheekeyn doonaa iyo qaabka naftirkiisa caafimaad ahaan ay related isku yihiin qofka markuu nooc maxaa ku dhacay physiological ahaan qaasnimada jirkii qaabka uu qaab qaadanaysa ee maskaxdii qaabka uu qayb qaadanaysa waxaas oo dhan waa kaga sheekeyn doonaa hadii la yiraahdo videogan soo socdo waxa kale la mid hadiyadna qof markuu guursado aan dhaashakna idan maxaa depression ka dhici kara ilaa qofkii ma guursadin lagu hayo guursado su'aasha way dhamaatay Soomaa haddana waxa imaan kara su'aal tooti ka sii daran oo inta badan waxa waaye dadka banaadamka marka kooxas leedahay su'aasha marka dhimato bay dhamaanaysaa su'aasha id xigtan waxay tahay inta waa iga kaftan haye ilmihi xaqiis in la isweydiiyo ninkii markuu guursado bishi uu horeysa aysan dhamaan 10 maalmo uu horeysa aysan dhamaan 5 maalmo uu horeysa aysan dhamaan qofka uu horeeyo xaflad ma ka dhamaato laga soo noqdo qofka uu horeeyo arki doon wuxuu leeyahay xaalad ka waran wax ma jiraan gabadha diyaar wax ma jiraan su'aashaas waxay noqon kartaa marka in qofka caqabad ku noqoto dana waxa laga yaabaa in qofkii in hadii la isguursado oo kaliya muxuu imaan qof in uu qaado waxa laga yaabaa in waqtigii oo dhiman tahay oo ilaahay xaqiisa ka dhiman tahay waxa laga yaabaa in cudurro hor u jiraysa iska baarin oo celinayo waxa laga yaabaa waxyaalo kale oo sabababa in environment ahaan u Saudiya oo ahaan in uur qaadaan in iyaga naftigooda aysan balan garaysan oo leeyihiin sanadkan kuwaadna iska joogno sanadka laad marka aan awr iyo waxa aan sameeyno ma fahanta marka laakiin bulshadii ayaa waxa ku naqanayso warniyo ayabu waxa waaye qofka in xukun loo gaaro talooyin lagu bilaabay naqanayso waxa leedahay wiilkii waxa leeyahay guurso gabar kale guurso isteer gare taaway gabadhi wiisin sidoo kale waxa leeyahay ninka ma wax weeyeen ku lugoyn iyo saan ku yeelin marka bulshadii waxa ku naqanayaan caqabad ku naqanayso caruur cilmihi sidoo Ilaahay leeyahay qofkii dooran wiilan siina ka dooran gabdhan siiya ka rabana waxa uu muusiyo marka maadaama wixii Ilaahay inoo bixiyo bulshada islaam aan nahnay in Ilaahay xaqiisa aan fiirino
marka waa mahadsantiin insha Allah waxaan rabnaa fiidiyoda soo socdo hadaa dhahdaan waa mawduucaas waan qancina views waan soo kordhinaa haddii la hadaysan aan qancina noo soo sheeg insha Allah waa mahadsantiin